السلطان عبد العزيز حدود كميد السلاطين Somaliland oo bulsha TV ku waramay magaalada Burco ayaa ka warbixiyay safar mudooyinkii u dambeeyay oo ku marayay gobolada kala duwan ee Somaliland. Sultaanka ayaa fariimo kala duwan u diray salaadiinta gobolka Togdheer iyo kuwa reer Somaliland, iyada qaranka ee Somaliland iyo qaybaha bulshada isagoo ugu baaqay inay dhinac uga soo wada jeestaan wax kasta oo wax u dhimaya wadajirka bulshada reer Somaliland. ugu horreeyna waxaan rabaa halkan inaan salaan uga diro madaxweynaha qaranka موسى بيحي عبدي مدحوينه ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici golayaasha kala duwan ee xukuumadda sidoo kale maamulka heer gobol ee Togdheer golaheeda deegaanka odayaasha dhaqanka ee gobolka Togdheer iyo guud ahaan shacabweynaha Somaliland waxaan rabaa markaa reer Burco inaan xasuusiyo ama reer Togdheer oo aan ilaahdo Togdheer waa gobolka isku haya shucuubta Somaliland bariga iyo galbeedka waxaan rabaa markaa inaan xasuusiyo aan ugu baaqo inay roolkii ay lahaayeen marnaba aanay hilmaamin ay qaataan roolkii lahaayeen taa inaan xasuusiyo ayaan ugu weeyay salaadiinta dhaqanka reer Togdheer waxaan iyagana u rajaynayaa inay hoos u galaan wax allaale iyo wixii khilaaf ah dhexdooda yimaada beelaha inay iyagu ay xaliyaan oo si silmiya oo walaalnimo ah oo saaxiibtinimo ah oo xigta ay ku xaliyaan waxaan rajaynayaa inay sidii ay u garab taagnaayeen xukuumadihii kala dambeeyay tanna ay u garab istaagaan oo roolkoodii aanay lumin Somaliland waxay u gudubtay xisbiyo oo nidaamka xisbiyada badan bay ku shaqeysaa mar haddii nidaamka xisbiyada badan lagu shaqeynayo حسبيده يجا معارض iyo muxaafid xisbiga talada haya waa muxaafid axsaabta kale aan talada markaa iyagu hayna waxa lagu tilmaamaa inay yihiin mucaarad magana waxa ka turjumaya dalka wixii uu hagaaga xukuumadda talada haysa ama xisbiga talada haya marka in beeluhu ay ka waantoobaan in ay isla soo taagaan telefishinka annaga oo reer hebela ayaa sidan tabanayna xisbiyada iyagoo ku amaanan wacyiga lagu jiro oo la rabo in horay loo sii socdo waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo aan u roonayn dhegaha shucuubta Somaliland inay ka dhowraan oo iyaga laftigoodu dhismaha ay ka qayb qaataan oo waxay mucaarad u yihiin inay wax saxaan inay wax dumiyaan mucaarad uma aha sixitaan bay mucaarad u yihiin odayaasha dhaqankana waxaan mar kale ku buurinayaa oday dhaqan u yahay waa reerkiisa anigu hadda dhawaan waxa laga yaabaa inaan gaaro xuduudaha cirifyada bari ee Somaliland oo markii hore baan ka soo kicitimay oo aan halka tago si aan bulshadii iyo dadkii ugu wacyi geliyo amniga u xaliyo wixii khilaafaad oo dhexdooda yaala sidaas si la mid ah inaanay fadhiid noqon oo aanay caasimadda iska fariisane iyaguna ay gaaraan beelihii oo ku wacyi geliyaan amniga guud ee dalka mar TV-ga bulsha weydiiyay suldaanka cidda ku wehelinaysa safarkan iyo sidoo kale waxyaabihii uu kala kulmay deegaanadii uu marayay ayaa waxa uu kaga jawaabay sida tan waxa ugu weyn oo aan la kulmay waxa weeye amniga waxaan la kulmay in shacabku community police ay yihiin oo community police u dhisan yahay waxaan la kulmay in laamaha amnigu ay shaqaynayaan oo ay haystaan shaqooyinkoodii iyo waajibaadkii loo idmaday way jiraan dad wax tabanaya laakiin waa shakhsiyaado cidda wax tabanaysa xaq waxay u leedahay miiska wada hadalka inay tagto iyada laftigeeda waxaan rajaynayaa in aan qayb ka noqdo aan qayb ka qaato wufuud baa igu wehelinaysay ku sugan Hargeysa oo aan kaga imi qaar kalena ay dib ugu laabteen xuduudihii laakiin safarkani waxa uu ahaa madaxa meel ka sarreeyso la taabtaa ma jirto maadaama anigu aan ahay suldaankii reerka aniga ayaa ma garanaysaa ka turjumaya guud ahaan beeshu meel walba ay joogto waa fahmigay saxarsi bulsha TV Burco.